cabdi ilay iyo heego haddii cabdi ilay laga dhex saaray intoodii kalena ay joogaan dadka la raadinayo ee gaarka ah waa ayo heegadan Mustafa maartay taageersan ama dawladdiisaba ku jirta wax ay hadda iyada caqabad ku tahay ma jirto aynu marka xaqiiqda iyo dhabta isla taaban ee heegada loo jeedo waa heega reer hebela weey Soomaa oo maadayna hogaamiyo kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay sida aynu wada ogsoonahay waxa waqooyiga dalka Itoobiya ka socda dagaal faraha lagaga gubtay oo u dhaxeeya dawladda federaalka ah ee dalkaasi Itoobiya haatan garwadeenka u ah iyo xulafadeeda dhinaca kalena waxa ka soo jeeda kooxda TPLF ee iyadu horay dalkaasi Itoobiya uga soo arrimin jirtay muddo 8 bilood ah ayaa dagaal dhiig badani uu ku daatay waxa uu ka socdaa waqooyiga dalka Itoobiya kadib dagaallo khadhaadh oo dhacay waxa 2 toddobaad ka hor magaalada Maqale ee xarunta deegaanka Tigreega si buuxda ula wareegay kooxda TPLF kuwaasi oo dagaalkooda haatan ku soo baahiyay dhinaca deegaanka Axmaarada halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay deegaama ay ku muransan yihiin Axmaarada iyo Tigreegu uu ka dhacay dagaal khadhaadh oo labada dhinac mid walba uu khasaare ba'ani ka soo gaaray dagaalkaasi kadib ayaa qoomiyadda Axmaaradu waxa ay u habar wacatay cid kaste oo ay islahayd waxaad ka heli kartaa kaalmo military iyo waliba mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed gaar ahaan deegaamada ay xulafada yihiin habar wacashadaasina waxa ka jawaabay oo ugu horeyn baa ciidamo xoogan u diray dhinaca deegaanka Axmaarada maamulka Oromada kadibna maamulada Binishaangul Gumus Gambeelaha iyo waliba Sidaamo iyo maamulo kale ayaa iyaguna waxa ay direen horimo ciidamo ah oo ka qayb qaata dagaalka deegaanka Soomaalida ayaa iyagana lagu wadaa in ay halkaasi ciidamo u diraan maadaama waxa la difaacayo ama waxa la dirirayo haatan loo arko mid lagaga soo horjeedo kooxda TPLF oo dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay ku dartay liiska ururada argagixisada ah khadka telefoonka waxa ku jira Cabdirasaaq Sarhaye oo isagu ah siyaasi deegaanka Soomaalida ka soo jeeda ahna muxallil siyaasi ah oo falanqeeya kana faallooda guud ahaan arrimaha geeska Afrika siiba dhinaca dalka Itoobiya muddeerna deegaanka Soomaalida soo joogay oo waatooyinku ay dhacayeen ku sugnaa gudaha deegaanka Soomaalida ahna ganacsade caan ah oo laga yaqaan deegaanka Soomaalida Cabdirasaaq waad maqlaysaa filaya waata Cabdirasaaq oo dalka Itoobiya gaar ahaan dhinaca waqooyi muddo 8 bilood iyo siyaada ah waxa ka holcayay dagaal culus oo khasaare badan uu ka dhashay bal hadda deegaanka Soomaalida marka la fiiriyo see wax uga muuqdaan dadku see u arkaan aad baad u mahadsantahay jaamac marka ugu horeysa waan ku salaamayaa deegaanka Soomaalida si guud waa nabad wax dhibaato kama jiraan waxaa jirta dagaalkaas waqooyiga deegaanka Soomaalidu wuxuu ka tirsan yahay dalweynaha Itoobiya dagaalka waqooyigu saameyn fara badan buu leeyahay oo dalkii uu maaragtay maadaama deegaanku uu Itoobiya ka mid yahay saameynta uu Itoobiya ku leeyahay oo deegaanka Soomaalidana ku leeyahay laakiin wax hadda maaragtay gaar ku ah oo maaragtay ama qalalaasa ama saameyn si gaar ah hadda ilaa hadda ma jiraan marka laga hadlayo xaaladda guud ee dalka Itoobiya dagaalkani iyo u dhaxeeya ayaa la dhihi karaa federaalka ahayd ee dalka Itoobiya waxay ku dhawaaqday xabad joogreega way isaga soo baxday marka hadda cidda dagaalamaysa waa ayo aad u mahadsantahay way caddahay cidda dagaalamaysa markii dawladda federaalku ay ka soo baxday deegaanka Tigray ee xabad joojinta ku dhawaaqday TPLF waxay u fahantay in laga maaragtay dawladii ay jabtay tariga iga adkaaday waxay marka hindiseen ilaa iyo Addis Ababa inay socdaan oo qabsadaan qorshoodu weeyaan dagaalku marka wuxuu u dhaxeeyaa TPLF iyo dawladda dhexe ee federaalka marka waxa kamid ah maamul dhan baa kamid ah oo ku jira oo Axmaaradii baa ku jirto Binishaangul baa ku jirto Tigray waxa ku jira maarta Oroma ku jirto Gambeela ku jira Canfar baa ku jirto cid kasta ku jirta marka dagaalku wuxuu u dhaxeeyaa TPLF oo dhinaca iyo dawladda dhexe oo intii kala ah
sidaasuu maaragtay u dhexeeyay xabad joojintan aqbali waayen iyaga aqbali waaye oo diiday oo sheegay inayna aqbalaynin markii la xaqiijiyey waxaa kaloo jira cadaadis fara badan beesha caalamku ay dowladda ay ku saartay iyo barayshar dowladda lagu saaray in xabadana la joojiyo gargaarka maaragtay gargaar kaadaminimadana la gaarsiiyo dadka shacabka ee deegaanka Tigray jooga wixii oo dhan way u qurqursan way TPLF inay marka dagaalkeeda iska wadato ayay go'aansatay dagaalkii in marka lagu rogaal celiyo oo celiyasa bay noqotay hadda wadarkiisa in ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidanka iyo lagu dhawaaqay in mar kale TPLF maartay dib loogu rogaal celinayo waan gartay iyagu ma ayna sheegin rogaal celin iyo in maartay duulaan la qaadahayo ee wax kale sheegeen Cabdirasaaq marka la fiiriyo xaqiiqda iyo waaqaca dhabta ah ee jira dowladda Itoobiya waxay yani markii federaalka laga hadlahayo iyadoo xabad joojin bay ku dhawaaqday maamulka Axmaarada ayaa wuxuu qayb kamid ah deegaanka Tigreega waxa loolanku u dhaxeeyo ciidamada faraha badan meesha geeyay iyada oo maaragtay aan dagaal bilaabanin abaabulka iyo qayladhaanta galayna waxay ahaayeen qoomiyadda Axmaarada marka ma dagaalkan ay labada dhinac waliba Axmaaradu ay si cad u sheegeen in ay deegaankaas oo ay ku dagaalamayaan dowladda federaalka Itoobiyana ay u aamustay miyaad leedahay Axmaaro iyo Tigray uma dhaxeeyo wuxuu u dhaxeeyaa Itoobiya oo dhan iyo Tigray mise yani Axmaaradaad u taqaanaaba Itoobiya jaab sidaas ma aha deegaan wallahi ku hayaan raaya iyo walqayta iyo la dhaho waa si guud waa meel isku haysto Axmaaradu iyo Tigray way isku haystaan taas iyadoo shaki ma leh horaan 30 sano ay TPLF wadanka xukuntay ayay qaadatay oo kilkooda ku darsatay hadda markii laga xoreeyay maaragtay ay meesha laga saaray TPLF ayay Axmaar tiri annaga awal baahan jirnay oo waa dadka yagiyo waa maamulka yagiyo ku darsanaynaa si guud marka Axmaaro iyo Tigray oo dagaal maaragtay ama nacayb fog u ka dhaxeeyo ama dagaal ka dhaxeeyo way jirtaa waa qaacida guud laakiin nimankan TPLF dagaalka cidda ay kula jiraan waxa weey hadda waa dawladda dhexe Axmaaro haday lacala ka adkaadaan oo soo dhaafaan oo qabsadaan meesha ay u socdaan waa inay jigjiga iyo Nazireed iyo dhammaan maaragtay deegaankii oo dhan dalkii oo dhan ay qabsadeen bay ka dhigan tahay nimankan marka ama way u socdaan kilka Axmaarada walowdi ay xadka xigaan oo dagaalkan inta ugu faraha badan uu saameynta ugu faraha badan uu Axmaar ku leeyahay laakiin qorshahoodu waa inay Itoobiya oo dhan qabsadaan sidaas ay keenaysa marka dawladda dhexe iyo u dhaxeeyo oo dawladda dhexe haday intaynan soo dhaafin aan laga hortagin yaa sabab imaan marka in la difaaco waa waajib oo la iska celiyo waan gartay marka Addis Ababa inay u socdaan iyaga kamaana maqalin oo ma ayna sheegin oo goob ay ka sheegeen ama saxaafaday ka sheegeen lama hayo waxa inta badan ay sheegayeen ama ay ku doodayeen in ay deegaankooda doonayaan in ay xoreystaan xuduudaha wixii ka horeeyay dagaalka maada u dhahaya oo hadda u sheegaya in maaragtay Addis Ababa ay u socdaan kooxdani horta waa jamhadii aad garanaysa ee dawladii Mingiste la soo dagaalantay muddada dheer hawdka ku jirtay ee soo jamhadeysay waagaas qorshahoodu wuxuu ahaa oo ay dhigi jireen deegaanka iyaga ayaan goosanaynaa oo maarta u soconaa muddo kadib waxa markii deegaankoodii qabsadeen waayagii soo socday asoo qabsaday Itoobiya oo dhan qabsaday way yaqaanaan xukun lagu qabsado in la soo jamhadeeyo oo muddo la soo socdo naqshadii bayna socdaan uma dhahaya anigu waa waaqac jiray loo yahay sida wali miyaad ka maqashay waan ka go'aynaa Itoobiya iyagoo dhahaya qorshaha u socda waxa weeye waa in Itoobiya qabsadaan oo ay maaragtay ay xukumaan nidaamkaas u socdaan nidaamkaasna ummadda reer Itoobiya oo dhan bay diidan oo ka soo horjeeda oo aan lamana aqbali karo 30 sano dhibaatadii ay maaragtay shucuubta Itoobiya ku hayeen baa la garanayaa dadkii iyo xanuunkii buu dareemayaa TPLF marka la maqlo ruux walba marka waxa weeye uu raacaya
waxaad ogtahay inta lala dagaalamahayay 8 bilood hal ruuxa oo Ethiopiana oo aan iyaga ahayn ama dad maartay banaanka wadamo banaanka mooyaan hal ruux Ethiopiana oo taageersan ma jiro waxa lagu nacayo waa dhibaatada ay wadankan iyo tacadiga ay ka geysteen waa loo yahay marka idina ma aqbali karto mar dambe inay soo laabtaan waan gartay marka la fiiriyo dhinaca kale waxaad tidhi tacadi bay geysteen dhibaatay geysteen gumaysi bay ummadda ku hayeen waa xaqiiq weeye midaasi oo waa run marka qoladan kale ama dhinacan kale ma waxaad aamin ka qabtaa Ethiopia loo siman yahay oo markii Tigray meesha laga saaro la wada leeyahay oo xuquuqdeeda iyo xukunkeeda iyo xoolaheeda iyo xisaabteedaba loo siman yahay oo maxaan ku yiraahdaa to dimuqraadiyo oo cadaalada in ay ka dambayso oo laga dhaxlo miyaad rajo ka qabtaa waa mahadsan horta TPL 3 sano iyo maartay muddo meelahaas ay xukun ka sii maqan tahay inagu marka Soomaali ahaan 3 sano waxa la dhihi karaa waan ka nasanay waan ka raysanay wax far badan isbedelana waan aragnay anigu hadda ma sheegi karo mana ballan qaadi karo macnaha in TPL laga haysan mustaqbalka macnaha sida kumeli laakiin waxaan ogahay hadda sanadahan lagu jiro isbedelku socdo TPL in laga raystay oo furfurnaan la galay oo maaragtay aan dadka la xidhin oo waxyaabo maaragtay ee deegaanka uu nastay dadka Soomaaliyeed ay nasteen inta un baan ku xaqiijin karaa laakiin de mustaqbalka Ilaahay baa wixii iman kara waxaan anigu hadda ka faaloonay ma aha waxaa jira dad badan oo siyaasiyiin ah ama tiro dad siyaasiyiin ah oo ku xidhan magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida dadkaasi waxay u xidhan yihiin oo kaliya aragtidooda siyaasadeed cidna ma isacaayin cidna waxba kameena sheegin wax dambiya oo ay galeenna ma jiraan qaarkood waad ogtahay oo waxa lagu xukumay oo aad adiguba taqaano sanado 3 sano 2 sano intaasoo sano ayaa qaarkood lagu xukumay wax dambiya oo haba yaraatee ay galeenna ma jiraan waa kaliya aragti siyaasadeed kuwa kale ayaa jira iyagana oo maaragtay to la xidhay oo haddana la iska soo daayay marka laga hadlayo aragtida siyaasiga ah ama xadhiga haddii tii horena dadka ay aragtidooda u xidhi jirtay tanina ay aragtida ay qabaan dadka ay u xidhayso ma la dhihi karaa adiga iyo in ilamida oo kooxa unbaa roob ku da'ay oo moodaya dadkii inuu roobku wada haye wax isbedela oo deegaanka ka hirgelay ma jiraan weli sidiiba dadka aragtida iyo aaminaadooda loogu xidhaya maya lama dhihi karo aniga kaliya ma ahan dadka dhan ee deegaanka jooga yaa markhaati waxay ka yihiin in la nafisay oo la nastay oo dadka xor u yihiin inay fikirkooda cabiraan ganacsigooda ay xor u yihiin xisbiga ay iyagu door moodaan inay ku biiraan ay xor u yihiin dawladda sida la door moodaan loo dhaliilaa wadawta dhulka si xor ah loo maraa habeen iyo maalin waxa weeye wadanku waa la isku gudbaa waa la socdaa waa macquul inay jiraan dad maartay afraad oo xidhan oo la xidhay oo dawladdu ay xidhay sabab kastaba loo xidhay oo deetaa maartay anigu ma anfinayo waxaan se ku sheegi dawladdan aad leedahay tii hore la ismar barbar dhigi karo dawladdii hore dadka lama xidhi jirin kaliya waa la dili jiray waa la garaaci jiray waa la dhici jiray maxaan ku dhahay waa la xabaalnoolin jiray suuqyada yaa maaragtay meydkooda la dhigi jiray gawaadhida laga tuuri jiray gabdhaha la kufsan jiray wax walba oo xun baa lagu samayn jiray marka nin ama siyaasi ah ama maaragtay laba nin haddii la xidho dee kama dhigna dawlad sideeda wax un way xidhaa taas dee sharciga laftiisa wax xidha oo wax xidhi kara marka wax la isbarbar dhigi karo ama maaragtay comparison lagu samayn karo taasi ma aha waa maartay waa waxaan suurtagal ahayn oo cir iyo dhul bay kala yihiin baa la dhihi karaa 4 sano ka hor wadankan sidoo ahaa iyo maanta marka la isu fiiriyo waa cir iyo dhul baa la dhihi karaa marka waxaaba jira oo jaamaco xad oo xaqiiqo ah kuwii tacadiga nooca geystay yaa jooga oo xataa laga argoosanaynin oo la xirxirin oo wali qaar dawladda ay ka mid yihiin ku jiraan qaar ay wadankooda joogaan qaar hantidii ay tabacadeen ay boobeen ay ku shaqaysanayaan ku ganacsanayaan waliba taaga wali ay hadlahayaan
oo dowladda iyo maaragtay iyo dadka ay afka goosanayaan oo laga cabsanayo oo iyagu ay kolba toddobaadkaasi wixii laga doodayo ay dadka iyagu ku dhex tuuraan taasaaba cadba marka anigu dowladda waxaan aad iyo aad ugu dhaliilaayo kuma dhaliilsanahay in dadka noocaasa in dadka laga qabtay ahayd in maxkamada inta la sameeyo oo weliba kuwan reform lagu sameeyo si cadli ah dadkii tacadiga ka geystay dalkan iyo dadkan dhibaateeyey inay mar dambe ay maaragtay ayna soo noqonin dadka in la sharciga la mariyo oo laga maaragtay wixii ay geysteen in laga gooyaaban anigu soo jeedin lahaaba marka waxaan aad sheegaysa xarig iyo laba dowladood ama laba dowladan iyo tii hore haddaad isbarbar dhigto waxa weeye haddee waa waxaan suurtagal ahayn cir iyo dhul oo kale isu yihiin waa tahay waa nin iyo aragtidii oo kolley dee qofba sibuu u arkaa aynu usoo noqono qorshaheennii ama maaragtay dhinaca kale iyo kooxda TPLF cabdirasaaq oo marka la fiiriyo guud ahaanba xaaladda dalka Ethiopia kooxda TPLF waxaad moodaa adigu sida aad u dhigayso si aan ahayn in ay wax u jiraan oo iyaga iyo axmaarada xurguf u dhaxaysa ay jirto iyaguna ay u habar wacdeen maamulada kale ee maxaan ku idhaahdaayo dalka Ethiopia iyadoo oo maaragtaayo dawladii federaalka ahaydna ay joogto oo ay ka dalbatay mucaawino axmaarada iyo Tigreega markii la isgarab dhigo waa 5 milyan iyo 30 milyan ku dhawaad maxaa kalifayaad isleedahay in axmaaro oo waxa ciidan ay haysato aynu ognahay in haddana ay iska difaaci weydo oo qayladaan u dirsato maamuladii kale maxaa kalifaya ilaa dawladii federaalka ahayd ay mar kale maaragtay hawshii faraha la soo gasho waxaan isleeyahay horta labadan qowmiyadood waxaa la isku dhaawaa abasiiniyadii maaragtay waa abasiiniya weeyaan horta labada qowmiyadood waa labada qowmiyadood baa horta talada Ethiopia weliba isku haysan jiray dalkan intiisa kale labada qowmiyadood baa uu qabsaday waxaa jirta marka aad bay horta colaad guun ah oo maaragtay dheer baa ka dhaxaysa waxaa marka jirta kooxdan TPLF 30 sano u dambeysay iyaga wadanka haystay wax alla wixii hub ahaa ama dhaqaale ahaa ama tiknoolajiyad ahaa bay kilkooda ama deegaankooda geysteen aad bay u hubaysan yihiin dhaqaale fara badanna way qaateen inkastoo hadda dee la naafeeyey oo aad maaragtay dharbaxa xoog lagu dhuftay marka way is yaqaanaan inayna isxaan u galaynin bay og yihiin laakiin anigu waxaan isleeyahay haddii labadooda la isu daayo way un isku riiqana way un isku baabi'i anigu laakiin ma filahayo inay maaragtay ay hadda ay ka tabaroon yihiin laakiin jiiri anigu ma aaminsanin laakiin de rabaan waxay u qayliyayaan waxa weeye waa kaale dagaalka nala galo nala jabi weeyaane malaha amaynan dee ahayn waa nala qabsanayaa naloo soo gurmado inayna sidaa inayna ahayn baa laga yaabaa si kastaa noqotee nimankan TPLF waa niman kolley dee aad u madax adag oo dagaalyahana oo waa la ogyahayba dee waa la garanaya waynu garanaynaa midda kale waxaa hadda la sheegayaa inay dhalinyaro ay maandooriya siiyeen ay maaragtay ay soo yaaciyeen oo aan gaadhinba qaangaad aan ahayn oy askareeyeen marka nimankan maaragtay axmaaradu waxaasoo dhan baa u muuqanaya sidaasaa keenaysa inay marka ay habarwacashada axmaaradu ay soo gudbiso laakiin cabdirasaaq marka la fiiriyo inagoo tix raacayna hadalkii abi axmed iyo adigu waxaad leedahay waa hubaysan yihiin oo waa buuxaan oo nimanku waxbay gurteen abi axmedna wuxuu yidhi wax cabsi oo dambe laga qabo ma jirto oo nimanka cagtaanu soo marinay wixii yaalayna waan ka soo qaadanay oo xabada ah ka yahay loo ordayaan marka adiga ra'iisul wasaaraha keen qaadanaa warkiisa maya waxa weeye ra'iisul wasaaruhu dawani siyaasi uu afgabaadsanayaa TPLF way hubaysan tahay ciidanna way haysataa u dagaalamo ay wadanka ku qabsato hubna way haysataa way muuqataa maxay wax ku qabsanaysaa wax ku dilaysaa haddaynu hub haysanayn iyo askar iyo hub way haysataa iyo dhaqaalaba xaqiiq weeyaan taas la iska wada tiri karo marka ra'iisul wuxuu leeyahay uu yiri isaga u taala laakiin TPLF ilaa ay sawir rabayna qabsadaan hub iyo ciidan ay haystaan u meel ku xisaabtamayaan waan gartay markii dhinaca deegaanka Soomaalida la fiiriyo waxa aad la isula dhexmarayaa
in la dirayo cutubyo ka tirsan ciidanka liyu booliska deegaanka soomaalida sidoo kale maleeshiyaadka degmooyinka iyo gobolada laga soo aruuriyay iyadana birqod la isu keenay oo la diyaarinayo deegaanka soomaalidu sidee isugu diyaarinayaa inuu ka qayb qaato howlgalkan deegaanka soomaalidu wuxuu ka mid yahay dalka Itoobiya ciidankan waa ciidan Itoobiyana meesha looga baahdo in la geyn karo waa macquul laakiin anigu ma ogi mana maqal ciidan deegaanku leeyahay oo maartay waqooyiga Itoobiya la geenayo mana maqal laakiin kulley waa suurtagal oo maartay hadda ka hor dagaalkii lagula jiray Eritrea xilligeedii waad garanaysaa ciidamo fara badan ba deegaankeena laga qoray oo la geeyay oo ka hortay Eritreankii laakiin anigu hadda inta aan xog hayo weli ma maqal xukuumadana kama maqal mana arag ciidamada deegaanku leeyahay baa la geynaya waqooyiga Itoobiya xogta ma hayo si guud waxaad garan kartaa dalkani waa deegaanka Soomaalidu wuxuu ka mid yahay Itoobiya dagaalka ay dawladda dhexe kula jirta TPLF mar haddii Oromo iyo Sidaame iyo maxaan ku dhahay Axmaaro iyo shucuubta koonfureed ay galeen Soomaaliduna inay soo galaan dhaho iyo Anfarta iyo Gambeelle wax la qariibsado oo la yaabo kulay maaha si weyn baa baraha bulshada loogaga hadalhayaa oo aad baa loo maaragtay tawadwadaa in ciidamo la diyaarinayo oo la geynayo meesha maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida isaga naftirkiisu waa ka hadlay oo arintaasi si kulul buu uga hadlay oo waliba eedeymo culus buu dhinacyo u jeediyay heego iyo TPLF taageerayaasheeda iyo maaragtay wax noocaas lagu eedeynaya taageerayaasha TPLF iyo dadka maaragtay waxaan la leeyahay way boonbooninayaan adiguna hadaa aad sheegtay inay TPLF taageersan yihiin oo u sacabatumay xagee joogan TPLF soddonkii sano ee wadanka xukuntay waxay samaysteen dad kabaqaad u ahaa oo ay iyagu tababareen oo ay anqariyeen oo Soomaali ah oo dadkii ay ku leynayeen dadkaasi deegaanka Soomaalida joogan gobolladay joogan degmooyinkay joogan qabaleeyaday joogan caasimaday joogan waa dad la og yahay oo la arko weeyaan waa dadka nooshimada ama maaragtay dadka wax ku dhex tuura maalin walba falsafad dadka intay ku dhex tuuraan lagu hafto waa dad maaragtay jira dawladday ku jiraan dalka dibadiisa u carareen joogaan marka dadka noocaas waa xoogag iyaga laftoodu aan la iskeenna tiri karin dadka khaldaan sharbay qabtaan si hoose isugu xiran yihiin maalinka in yar oo guul ama qala laga sheego halkan waxaad arkay iyagoo baabuur kicinaya marka xoogaa maaragtay dhabar jab uu ku dhaco TPLF ama saraakiishooda la laay ama la qabtay iyagoo gamiinsan oo wajigu madow yahay baad arkaysaa waad ogtahay jaamaco Cabdiile iyo dadkiisii kumayaalka ay gobolada dhan joogay way joogaan meel la meelan aadin mayna dhimanin mana ayna dhoofin waa xaadir way joogaan dadkaas markii isbedelkii diidan yihiin marka la sheegay TPLF iyo dhibaatada inuu haysay ay aad soo hadal qaado waxay miiska soo saari Axmaaro oo ay kulli Axmaara ka daran bay kulli Axmaara cid amaanaysa ma jirto Axmaaro iyadoo 100 sano iyo 100 sano ina soo gumaysanaysa ina soo leenaysay laakiin hadda cidda maaragtay soddonkii sano u dambeysay ina dhibaataysay raadkooda qoyan yahayna waa TPLF kuwan hadda duulimaadka raba inay mar dambe intay Itoobiya qabsadaan oo ay maaragtay dib inoo qabsadaan Itoobiya dib 100 sano soo socotay ka badan ay u gumaystaan ba TPLF marka waa sida way joogan heego iyo haraagideedii iyo dadkii maaragtay tiimka Cabdiile intaas way joogan iyagoo doonaya mar kale inay dib inoo gumeeyaan oo ay xabsiyadii jeewadeen ay maaragtay ay dib u furaan way joogan dhammaan xukuumadda Mustafa marka laga reebo shakhsiyaad waa tiimkii Cabdiile iyo heego marka la fiiriyo wasiirada inuu ku jiro dawladda dhexe ee dalka Itoobiya waa tiimkii Cabdiile iyo heego tiimka Cabdiile iyo heego haddii Cabdiile laga dhex saaray intoodii kalena ay joogaan dadka la raadinayo gaarka ah
waa ayo ileen waynu is ognahay oo deegaankii Soomaalida waa la yaqaanaa oo waxa meesha ka jira waa la wada og yahay dhammaan baarlamaanku waa heego wasiirada xagga jooga ee federaalka ku jira kala bar waa heego kuwa meeshan jooga 5 meelood ma Mustafa iyo 3 kale mooyaane inta kale waa heego heegada aad raadinaysaan aad cambaaraynaysaan ee maryaha dadka ku dhex tuurta ee maxaan ku idhaahdaa ayto marna wajigu madow yahay marna maxaan ku idhaahdaa ayto dadka abaabulaya waa ayo dad gaaraha waa mahadsantahay jaamaco waan kugu raacsanahay heega inay dawladda ku jirto inay wasiirada ku jirto inay heer federaal ku jirto inay maxaan ku dhahaayay ay ciidanka iyo amniga iyo shaqaalaha iyo meel walba ku jirto waan kugu waafaqsanahay kuma diidani waxaase jirta heegadu laba qaybood bay noqotayo dad waxa weeye waa dad systemka iyo isbedelka qaatay dadna waa gacan ku dhiiglayaal aan wali isbedelka qaadanin qaar fara badan oo marka waxaa jira oo aan naf ku biiray oo shaatiga oo aan naf xibay oo iyaguna dhinaca ka soo jeeda oo gaar ahaan waliba garabka maadii taaga si fiican uga dhex muuqda oo active ah waa iyaguna jira si kasta ha noqotay waxay noqdeen iyaga xoogag adugu dhinac walba ku jira dhinacan marka hadda challenge ku jira ee waxaan oo dhan keenaya waa dhinaca sida rasmiga uga soo horjeeda Mustafa heegadan Mustafa maarta taageersan ama dawladdiisaba ku jirta wax ay hadda iyada caqabad ku tahay ma jirto laakiin marka heegada loo jeedo marka aynu xaqiiq heegadan aan isbedelka ka soo horjeedo taa weeyaan midda dadka ku dhex tuurta waan gartay aynu marka xaqiiqda iyo dhabta isla taaban ee heegada loo jeedo waa heega reer hebel weey Soomaa oo maadayna hogaamiyo no maya ma heegada loo jeedo reer hebel ma aha heegada loo jeedo waa midda isbedel diidka ah TPL xilli xaadirkan u sacyanaysa u sacbatumaysa midda weeyaan cidda door mooda ha ahaato